taxnayn maanta wuxuu ku bilaabanayaa saddex saaxiib oo ka soo baxay hal jaamacad agtarkiina ayaa kamid ah oo Aryan lagu magacaabo iyo sidoo kale saaxiibkiisa Sam iyo Shanita waan ku wada dalxiis ee magaalka Buuqis uga soo baxeen dalxiiskaas intay wadeen saaxiibayaashan ka wada hadlaan arrin ku saabsan jacayl iyo qofka ay jeclaan doonaan Aryan uu dhahayo waxaan idinkaga digaa jacayl nuucan isoo maray oo kale inuu idinkeeda soo marin ku sii darsana Aryan waa wiil qabo dhibaato taasoo ah qof dulmi wado ama kibirlo ah ama dad dulmina hadii uu arko xanaaqii ayaa ku soo dhacay oo wuxuu jecel yahay inuu caawiyo maalinkaasna dalxiiskooda kama dambeyntii meel yar oo magaalaha soo gaarayaan halkaas intay joogeen Aryan uu arkayo nin maalqabeena kibir badan oo oday masaakiina oo wadooyinka ku iibiyo fruitis gaarigiisa ka dardarsiiyay ninkan maalqabeenkaasi halkii uu odaygan masaakiinka raali geli lahaa uu ku dhahayo wadada aabaha ma iska leh ma ka baxdid wuxuuna bilaabaa inuu caayo taasna Aryan uu dulqaadan weynaa saaxiibadiisa oo celinaya xataa warkooda ma yeelay wuxuuna u imaanaa ninkii kibirlowga ahaa wuxuuna ku dhahay waa inaad raali gelisaa balse maalqabeenka uu dhahayo mintaana qofkan ahay Aryan wuxuu jawaabay qofka waxbiga ma gelin waa inaad raali gelisaa dagaalna ayuu ku qaaday kama dambeyntiina kibirlowga markuu arkay in ninkan xanaaqiisa torab u yahay ogolaaday inuu raali geliyo inta kalima xataa wuxuu ku qasbaa lacagtii inuu si qasab u bixiyo waan u bixinaa dhinaca kale meel magaalka inuu barano adirishada filimkeena oo dhakhtar Maryam lagu magacaabo taasoo hospital waaweynka ka ah waan dhakhtarad aanan jiljilaac wacliyaad qaadan habeenkiina markii ay saddexdii saaxiib weli magaalka meel kamid ku baashaalay Sam iyo Shita oo ahaa laba qof oo xooga isjecel Aryan kala tashanayaan arooskooda iyo sidii uu dhici lahaa waxaan Aryan ku dhahayn qaybta reception ayaan ku fadhiisinayna oo dadka aan casuumnay magacadooda ayaan noo tirinay isagana taas uu ka xanaaqa xitaa waxay ku qalqaalinayaan inuu isna arooso maadaama ay jirjir markay jaamacad isla dhigi jireen gabar uu gaadkaadi jiray taas keensa dhahay isagana uu ka xanaaqa waxaaba soo dhahay jacayl iyo aniga habarteeda ka taamis arkayno si kastaba mar dambe ay soo kala tageen Aryan gurigiisa uu aaday labadaanna gurigooda ay soo aadeen intay wadada ku sii socdeen Sam iyo Shita gaarigii uu wadada uga dhaxalaabay halkaasna waxay meel yar oo fiicneen waxyaabo xun lagu cabo waxaana joogay saddex ciyaal suuqin mid kamidna uu la dhashay dhakhtar Maryam Sherina ayaa lagu magacaabaa waxaana dhahayn qoftaan mujida caawa waanaga iska leh inaan ku baashaalnaa dhinaceedan ayay soo aadayaan waxayna weydiinayaan labadan gaari ka laaba ma idin caawinaa balse Sam uu ku dhahay caawimaad dhan uma baahnin hasaatee Sheri iyo ciyaal suuqina kale ku qasbayaan inay caawiyaan waxayna bilaabeen gabadhan inay soo dhadhawaadaan nasiib wanaagsan iyagoo mar hore gaariga markuu ku halaabay waxay Aryan si uu u qaado isla waqtigaas Aryan uu yimid ciyaal suuqintana ku dhahay meesha ka taga balse way madax adeegeen oo waxay bilaabeen in isaga wax ka sheegaan markii hore Aryan uu xanaaqiisa kontarolay nasiib xumas laga dabageeyay oo dagaal ku qaadayo raggan isjiidkiina waxay keentay Sheri bastoolad u heystay inuu la soo baxo intay ka fakatana waxay ku dhacaysaaba gabadhii Tina ahayd Sheri iyo saaxiibayaashiisa markay arkeen dhibaatada ay geysteen isla markiiba gaarigooda meesha ka qaatay si booliska uusan u qabanin badan saabna isla markiiba gabadhan dhaawacantay hospitaalka u soo qaadaan isla hospitaalkaas ee keeneen wuxuu noqonayaa kii dhakhtar Maryam kalkaalisooyinkii joogana waxay diidaan inay caawiyaan gabadha xabadu ku soo dhacday maadaama ay ka baqayeen in dhibaato ku tahay ayaga Aryan ku dhahay booliska waa inaad ka soo diiwaan gelisaa gabadhan kadib noo keen isaga sidaas uu ka xanaaqa wuxuuna bilaabay inuu caayo dhammaan kalkaalisooyinkii dhakhtar Maryam waqti xadirka shaqada ay ka baxday iyadoo gurigeeda u sii socotana kalkaalisooyinka mid kamid ah ayaa wuxuu ku dhahay qof dhaawac oo aad u daran ayaa yaalo ana soo noqota sida u dhaqsiya badan waana ogolaane markay maadana gabadhii Tina waxaa la gelinaya qolka emergency-ga nafteedina intii badbaadinayeen saacado fara badan qaadatay Aryan uu wada xanaaq fara badan kalkaalisooyinkii caawiyaalkii dhanna ku xanaaqaya taasna dhakhtar Maryam ayaa kama dambeyntiisa ogaanaysa waxayna u imaanaya Aryan waxayna ku dhahay kibirlow ayaa tahay welibana aad cambuulo looga badiyay booliskana ayaan kugu dacweyna waqti xadirkan maadaama aad qalalaaso hospitaalka ka geysatay Aryan hadalkii ayaa ku dhigayo markuu arkay gabadhan iska celinayso kama dambeyntiina Aryan waaba la xiraa qaralaasi uu geystay darteed xabsigan intuu ku jira ninka uu iska alimentinayo marta masanin askari ah oo maday wuxuu ku dhahaa waynaad warqad raaligelinaha bixiso awan xabsiga waa laga sii deynaa balse wuxuu ku dhahaa maya waxaan raaligelin bixinaya ma jirto qoftaas sharafteeda ayay u guftay waa inaanba ka arkoodsada wuxuuna doortay xabsiga inuu liinta ku cabo subaxdii markii la gaarna Aryan aabihiisa oo ahaa professor jaamacad wax ka dhigo lala soo socodsiinayo in wiilkiisa xabsiga uu ku xiran yahay wilibna dhakhtar Maryam ay ka gudbisay fayl dacwo ah oo nasi sheeg sidoo kale xitaa markii uu ka codsaday in warqad raaligelin u bixiyo Aryan uu diiday professorkan uu ku qasbanaaday inuu dhakhtar Maryam hospitaalkeedii yimaado si uu gabadhan u weydiisto cafis isagoo mas'uulka wiilkiisa dhinaca kale hospitaalkii dhakhtar Maryam iyo Tina u wada sheekaysanay Tina ay dhakhtardan ku soo qaadayso arrin ku saabsan Aryan iyo inuu yahay wiil aan saas si xumaan balse xanaaq leh marqaar uu ka tambadiyo dadka dulmiga nacabna u yahay hadalaasna markay maqashay dhakhtardan xoogaa yar qalbigeeda uu tegay cafiskeedina markay ku soo noqotay professorkii uu u fadhiyo wuxuuna gabadhan ku dhahaa wiilkayga inaad dacwadaad ka gudbisay inaad kana laqato ayaa rabaa qaladku ka geystana aniga ka raaligelin
dhahaaya balse dhakhtarada ay dhahaysa wiilkaas kabiir loo waayo wuxuu u qalmaa in xabsiga liinta uu maalmo ku cabo brofesorkanna iyadoo aanan aqoonin si aanan fiicnayn xitaa ula hadashay wuxuuna ku qasbanaad mar dambe inuu meesha isaga siito kasii bixiisna dhakhtar maryam caawiyaheedii koobaad ee brofesorkan arkayso maadaama uu ahaa macalinkeedii jaamacadda wax ku soo baaray waxaana leeyahay muxuu ka qabanaya meeshan waa macalinkeygii aad ayaanu jeclaa weliba inaan la kulmo waana la qadariyaa dhakhtar maryam ay hoos ka dhehayso yaa qaladaan geysta maanta ku soo noqo xabsigii aryan subax suurada markuu ka soo kacay ciilkii ahaa uu haayo wuxuuna xasuusanaha xali tole raggii tiina dhaawaca u geystay isla raggan laftirkoodan oo meel magaalka kamid ah jooga iskana dheelayay buul mid eegaan kamida oo maskiin iska xoogaa daacada ka xun yahay xali tole gabadhii uu sheeri xabadda ku dhiftay iyo maanta xaalkay ku sugan tahay hasaate sheeri iyo kuwa kale idhahayeen maxaa noo kale hadday dhimta xitaa haatan anaga wejigeena lama yaqaano booliskana soo nugu aqoonsanaa dadkaana ka mid nahay maqribkii maalkasta markii la gaaray dhakhtar maryam ay imaanayso guriga brofesorka iyadoona inay raaligelisa rabto maadaama maanta si xun ay ula hadashay gurigii markaysa u soo gelaysan odaygana soo dhaweynaya arkaysa sawiro fara badan oo aryana iyo inuu yahay wiil injineer ah welibana jaamacad kasoo qalinjibiyey aqoontiisana xataa heer sare gaarsiisan tahay aabahana uu xataa gabadhan uga sheekanaya arrimo badan wiilkiisa ku saabsiisan iyo inuu yahay wiil nolol adag kusoo kara maadaama hooyadiisa mar hore ee iyagana ka tagtay isagana markii uu soo korinayo si fiican ula dhaqmi jirin waana sababta wiilkayga uu madax adeeg uga batay isagasaba gabadhan waxaanan ku soconin islamarkiina brofesorkan ayaa dhahay am very sorry saa ballan uu qaatay in cabashadii ka gudbisay wiilkiisa hosbitaalka dhibaatada u geysa darteed kala naqatay aryana la soo dayn doono ilaa maalinkaasoo dhan brofesorkan la joogtay maadaama uu ahaa nin aqoontiisa aan caadi haynin waanay ka faa'iidaysanaya cilmi fara badan ayay ka baranaysay marqaran brofesorkan wuxuuba ka hadlay arrin ku saabsan noloshiisa gaarka iyo xaaskiisii sababtay ugu tagtay kale aryan oo laga soo daayay xabsigii hosbitaalka ugu imaanaya saaxiibadiisa tiina aadna ayuu farxa markuu arkay inay caafimaad qabto idina kula dardaantay dagaaladan aad gelaysa mar walba iska dhaaf balse arrin maskaxdiisa waxaaba kaliya ku jiraan hosbitaalka intuu kasoo tegay imaaday xalay tiina meeshii lagu dhaawacay odaygii makiinka ahana ee shaax meeshu gaday ayuu weydiinaa ayaa la suuqintaha ii sheeg mataqaana magacyadooda isagana ugu dhaha maaqan meeshaan iska yimaada mararka qaar waxaa lee ka iibsadaana hasaatee hadalkaskiisa ma dhegeysanayo wuu ku xanaaqa aryana mar dambe ogaaday inuu qalad geysanayo odaygana wuu raaligelina kisiro lacagana ayuu jaabka u gelina wuxuuna ku dhaha lacala haddaad aragto iisoo sheeg nambarkiisana ayuu uga soo tega intuu u qoray kusanaq brofesorkii iyo dhakhtaradii habeenkii ay isla gaareen si u sheekaysanayeen guriga iyadoo kasii bixisay aryan oo isna guriga markaasuu ku soo noqday markuu dhakhtaradan ku arkan gurigooda uuba ka xanaaqayo wuxuuna ku dhaha ma adiga gurigeyba ii joogo inkaar qabtay maxaa kasoo doontay isagoo ku xanaaqi raban aabihiis ayaa dhahaya warya kabiirlo waa tahay ka tag meesha gabadhana guriga isaga soo tegaysa habeenkiina aabahanay wiilkiisa wada cashaynayay brofesorkan aad ula dardaarmayay wiilkiisa iyo inuu noqdo qof shaqaysto dagaaladan iyo madaxadeegan u wadan uu joojiyo balse aryan waxaabaas dhan aysan ku soconin cashadii dhan ayuu kasoo istaagay qolkiisana markuu soo galay wuxuuba xasuusanaa dhakhtar maryam iyo waqti xadirkan inuu dardareemayo cudurka tameeraha ku dhaco subaxdiina markii la gaaray haddana aryan oo hosbitaal kusoo noqday si saaxiibadiisa tiin u soo boqdo qaybta receptionka ku arkayo oday xanaaqsan sida isagu xanaaqsanaa jira oo kale wuxuuna dhaha odayga oo kaalay isdeji xabsigaa liinta ku cabaysa haddaa isdeji weyso wuxuuna ku guulaysanaa odaygan inuu dejiyo waxaabaas dhanna markuu sameynaya dhakhtar maryam ee daawanaysay hoosna waxay ga dhahaya yaa u isbedelayaa aadna igu farxaysa aryan oo haatan dabiicadiisa isbedelayso mar daban markuu soo galay qolka tiina ay ku jirtay aryan saaxiibayaashiisa ay u sheegayaan gabarna haddii aad dhakhtar maryam raali geliso maadaama nafteeda ay badbaadisay taa darteedna sidoo kale xaflad ayaan dhiganaynaa oo ugu dabaaldegayno caafimaadkii ay tiina caafimaaday balse aryan uu dhahayo dhakhtar maryam ma raaligelinayo ayagoo ka xumaynayaan xitaa waxay ku casuumayaan xafladaas dhakhtar maryam iyo caawiyihii dhakhtar maryam oo mahlab lagu magacaabo dhinaca kale xafiiska dhakhtar maryam iyo mahlab oo wada sheekaysanayay mahlab markay aragtay maryam oo aad u farxsan markii ugu horreysay dhehaysa yaa ma jeclaatay qof yahay iyadase ugu joogta meesa u malaynaysa maahan si kastaba mahlab ay saaxiibadeeda kula dardaarmayso inay aroosto maadaama nolosha iska gaaban tahay maalin walban mashquulkan iyo shaqadan ay ka daba ordayso iska dhaafto maryamse ay ugu jawaabayso wiil shira lagu magacaabo ayaan rabaa noloshiisa inaan dhiso waa ka ciyaar suuqii oo iidaan la dhashay ayaan rabaa noloshiisa inaan dhiso oo hagaajiyo kadib ani waa laga yaabaa inaan guursado maadaama hooyadiis iyo aabihiis iyo walaashiis iyo wax walba aan u ahay walaalkayga sheeri yaan ka ilaabina mahlab ee maryam usoo jeedinaysay xitaa in aryan ku qabsato yeese waxaa ku dhahe kuma qabsan karo waa wiil iga yar 100% oo wuxuu ku da'yahay ama isku fac yihiin walaalkaygii sheeri habeenkiina markay ahayd aryan guriga dib ugu soo noqday aabihiis oo iska sheekaysanaya mar kale xasuusanayaan wiilkan hooyadiisii iyo noloshii xumadee labadu ku soo wada gurmeen taasna waxay dhiirigelinaysaa brofesorkan wuxuuna soo qabsanaa buuggii sawirada ay ka buuxeen xaaskiisa na ayuu iska daadaawana hoosna ka dhahay qof yahay waa kuu xisaagay iga aaday subaxdiina markii ahayd diina hosbitaalka laga soo fasaxayo intayna bixin ka horna labadii dhakhtar ee caawiyey dhakhtar maryam iyo dhakhtar mahlab ayay u mahad celinayay wasii sheegtan caawa waa habeenkii xafladda dabaaldegayga isla habeenkiina ayaaba la gaaray orad badana waqtiga xafladdiina waaba ay imaanayaan dadkii oo dhan dhakhtar maryamna ay ka mid ahayd
ahayd halkiisa intay ubaxi ugu dhiibaysay ninkii aryan ahaa ofleen u yahay wuxuuna aad u daadaawanayaaba dhakhtar maryam sheekadan waxaa fahmaya tiina oo waxay dhahe sheeko kale ayaa jirta caawa sheekaasna waxaa waaye aryan ayaa raba inuu ku raaligeliyo maya waan ku raaligelina qof yahay I'm sorry maalin hor waxaan ka dhex sameeyey hosbitaalka waana ay ka aqbale labadoodan ayay isaga tegayaan balse aryan wuxuu sheegay u weynayo dhakhtaraddan waxay sheegtay weynayso waan lagu kala tegaa isla markiiba xafladana farxad kale ayayba noqotay oo tiina iyo sam waaba isdhagax dhiganayaan oo wiilkan wuxuu gabadha weydiistay muku aroosa iyadana ay dhehayso haa singalnimaaba iddishay si kastaba xafladaas intay socotay baashaal boodbood isla hoteelkan xafladan ka dhacaysa ay imaanayaan shiri iyo ciyaar suuqiintii saaxiibadiisa ahaa waxaana dabcan xoog inay kusoo galaan albaabka balse waxaa ka diidaa taas ninkii waardiyaha ka ah oo wuxuu leeyahay diskiin ama warqadii lagu geli lahaa ma haysataan markay dhaheenna maya uu ku yidhi ka taga meesha ayagoo ninkan inay garacaan rabeen mar dambe go'aansadeen inay isaga tagaan meesha si kastaba xafladiisii u socotay mar dambana ay dhammaatay lagu kala tegayana dhakhtar maryam oo gaarigeeda meesha kasii qaadir oo gaariga bib siisay ninkii aryanaha uu malaynaya in isaga loo baaqooyo waana uu soo fiiri lahaa balse nin gaari ku hor baakintay ay u baaqayso dhehaysa iga hor leexo gaariga watana oo diiday inuu gaariga ka hor leexiyo aryantaas uu ka xanaaqayo milkiilaha gaarigan ayuu u imaanaa wuxuuna ku dhaha gaariga meesha ka leexay balse aryan dhan layska indhatiray xanaaq dartiisuna ninkii dhan ayuu soo qabsaday oo gaari ayuu ku sidijina dagaal inuu ku qaado ayuu rabay balse dhakhtaraddan ay dhehayso aryan isdeji naga dhaaf dagaalka amarkana si qabow ah ayuu u qaadanaaba gacantana dhaawac ka soo gaaray dhakhtaraddan ay ku dhahaysay britol hosbitaalka igu imow anigaa kaa dhayaya oo bandhij kaa saaraya si kastaba gabadhan gurigii markay imaatay arkaysa walaalkeed oo mar dambe saqdhexyadood socda saaxiibadiisa jaal suuqintana la socdaan cidna ayay uga xumaatay wiilkan ay rabtay noloshiisa inay dhisto iyo asaga si uu u dhaqmo gurigiina markuu soo galay xanaaq ayay ka horkeena oo dhehaysay saan aniga kulama rabo saaxiibadan aad la socotana kuwa fiican maaha waa inaad ka fogaataa subaxdiina markii la gaaray aryan oo mootiisiis ka samaysanaya saaxiibkiisii saamna la joogay aryan ku soo hadal qaadayo qofaan kula jeclaaday qoftaas niyata markuu yidhi ugu dhahayo waa dhakhtar maryam taasna aryan ay ka xanaajine wuxuu dhaha awowgii camala u dhaqmowsaa aniga soo ma dooro karo qofka aan rabo isagana ku dhahay xala si fiican kuu fiirfiirinaye qoftaas hal mar hataa isha kama leexinaynin aryan qoftaasaa jeclaata soo maarun ii sheeg balse aryan uu waxaabaas dhan iska mashquulinaayo qoftaana hoose ayuu u rabay galabkii maalinkaasna aryan uu imaanayo hosbitaalka xafiiska dhakhtar maryamna ayuu soo istaaga muddo sakin ahna wuu ka cabsana in u gargarac mar dambe sagriisi ayuu iska dhigay dhakhtar maryamna markay ku dhahdo gudaha u soo gal uu weydiinayo riboortiga tiina ayaan rabaa si aan ugu qaado waxay isku dhehe mar hore ayaaba la qaaday wuxuu ku hadlana intuu waayey dhahay waa iska baxay macasalaamihi mar dambe saadan dhahay ma bixi kari waa inaan qoftan xoogaa la sheekaystaa sheekadiina meel ku bilaw intuu waayey haddana u sheegay waan kuu mahadcelin lahaa saaxiibadii tiina inaad badbaadisay yees ugu jawaabayso mas-uuliyaddeeda ama waajibkeyga ayaan gudanayay si kastaba arrimo shakhsiyadooda is weydiinayaan sheekadiina waaba isla fahmayaan oo waab isugu baxday intaa kadibna maqribkii mar ay ahayd aryan uu saaxiibkii saam la joogay una sheegay maanta in hoteelku u aaday qoftiina xoogaa soo fahmeen saam uu taas ka xanaaqaya wuxuuna ku dhaha adigoo saan u libisan waa u tagtay saa u taalla fiiri yacni libis noocan oo kale gabadhaas lalama hortago xoogaa inaa iskala kiciisa ayay ahayd sidaynu ku dhaha dhargii maxaa ka qaldan gol dardaarma dhar kala kacsan oo xiran gasho markay soo kala tegayna habeenkii aryan uu qolkiisa ka joogay dhakhtar maryam ayba niyadiisa ka bixi la'dahay xitaa wuxuu mala awaalinaya iyadoo ag fadhido labadoodan isfiirfiirsanayaan subaxdiina markay dhakhtar malab saaxiibadeeda maryam ku qalqaalinayso inay nolosheeda qof soo geliso micnaa jeceyl ay yeelato aryan iyo iyadan isku soo baxayaan markay isdhagax dhigtaan waxay isdhaheen maya kaasuu agayarya walaalkeyga camal waayay si kastaba waqti xaadirkaas uuba aryan soo wacayo xafiiskoodana ayay soo gelayaan dhakhtar maryamna hadalkii ay gefgefays oo aryan ayay weydiinay dhaawacii gacanta kaga yaalay makuu reysayey makaa dawheyaa haye dhinaca kale aryan oo raba inuu gabadhan u sheego jacayl amaba yacni waxyaabaha uu dareemayo dhakhtar maryam baa jawaab uuna filin ka horkeento oo waxay ku dhahay ani aad isku maqalno walaalkii iga yar camalaa tahay saasaas waa ogaw maskiinkii aryana taas qalbiga ayay ka jibine saaxiibkii saam oo la joogana ku qoslaayo maskiinkan haatan qalbiga bashkax ka dhahay waxuuna ula dagaala saam maadaama qofkii ku qalqaaliyo uu ahaa in dhakhtar maryam uu waco galabkii maalinkaasna dhakhtar maryam iyo mahlab ay u imaanayaan brofesoorka mahlabna ay rabtay brofesoorka inay la kulanto weliba si zaa'ida cilmi fara badanna ayay ka baranayaan brofesoorkan intii la joogeen dhankale dhakhtaradan walaalkeedii sheri iyo saaxiibadiisa ciyaar suuqiintaha oo baashaal waday isku xijiysanayaan bustoolad in xabad la geliyo qof walban madaxuu iska saaro welibana hal xaba ayaa ku jirto qofkii dhimanaya hadhinta ayay leeyihiin midkii ayaan ka midkaha ee daacadahan oo diidaya waxyaabahan lagu qasbaayo mid walban madax iska saaray mar dambana sheri wakhtigiisa markay ahayd madaxna iska saaray xabad ayaa ka dhacaysa bustooladaas kaamiraduna waa isdemine oo meeshas wixii ka dhacayna lama tusaayo qaybtii koowaadna halkan ay ku gabagaboobe qaybta labaad si uu waynina kuna mahadsanid daawashadaada maxaad nagaleeya imtixaanahan 1 iyo 2 ilaa 10 kommenti ugu soo qor ku mahadsanid daawashadiina qudda xafiis